waxaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho xilalkii kula kala wareegay taliyaha cusub ee ciidanka badda Soomaaliya iyo taliyihii hore kadib munaasabad kooban oo ka dhacday magaalada. Munaasabadda waxaa ka qayb galay saraakiisha ugu sareysa ciidanka badda iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga. Taliyaha cusub ee ciidanka badda Soomaaliya ee maanta xilka la wareegay gaashaanle sare Xasan Nuur Colujoog ayaa taliyihii hore Maadey Ufurow ku ammaanay waxqabadkiisii muddada uu xilka hayay, isagoona xusay shaqada loo igmaday uga soo bixi doono sidii loogu dhiibay. qodobooyinkaas waaweyn baa ku jiro waxa la qiimeeyay oo dadku ay ka sibiroween waa ay sheegeen saraakiishan qaan arkay waxa la yiri waxyaabaha looga sibiro waxa kamid ah mushaarka ciidanka oo isku daasan uu kala dejiyay mushaarna uu sameeyay saraakiishan uu sameeyay ninkii wanaag sameeya waa la daaqay anigu kuma jirin saraakiish loo sameeyay maanta waxa laga yaabaa inaan mushaarka qaato sidaa darteed taliya Ufuro ma haddii aanu mahad celiyay ka bacdi waxaa laga yaabaa fitrooyinka soo socdo in haddana loo baahdo la yiraahdo Ufuro baan rabnaa annaga inoo la soo celiyo oo saa ku soo noqoto kursigaana waa meerto oo kolba nin iskale ma jirto kolba nin baa imaanaya kolba nin laakiin way kala qiimo badan yihiin ninku bulshadu dooratay oo yiraahdo ninkaas aan rabnaa iyo ninka madaxda soo xushay way kala qiimo badan yihiin ninkii bulshadu soo xulatay baa qiimo badan marka in bulshadu u yeeran doonto oo ay dhihi doonaan Ufuro baan rabnaa dhowr firtan ka bacdi oo haddana ilaahay noo lagu wada gaarsiiyo yaa suurtagal marka taas ku calool adagayso sharaftaadi waad wadataa annagana waa ku qiimaynaynaa taliyaheeni baa tahay ciidanka heerkaan soo gaarsiiyey nagamana socotid waa kula tashanaynaa dhibki ciidanka uu lahaa weli waa ku jirtaa kama baxaysa ku yarayna ciidanka waxaan leeyahay walaalayaal aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyn badan baad ii samayseen ilaahay waxaan ka baryayaa soo dhaweynta mid lagu khasaaray inay noqonin oo la dhinsaan moodayna ma aha yaan ilaahay ka baryayaa anigu waan soo shaqeeyay runtii taliyaha daayta wuxuu yiri gaas buu ku dhawaaday kuma dhawaanna taliyaha gaaska koobaad baan ahaa taliyaha gaaska koobaad baan ahaa intaan maqlay waay taliyaha gaaska koobaad baan boora baan joogi jiray iyo Hargeysa iyo muxuu ahaa ilaa xuduud iyo sidii saakal ii soo galbiyaa Djibouti lagu galbin jiray kolka Djibouti aan rabo ilinka kale ii istaagi jireen anagoo ku xanaga wada noqon baa ka hortagi jirnay fiisa iyo waxa ma jirin wali galbin jiray magaalada saasaan ku gali jiray marka ilaahay baan ka baryaynaa inuu hore noo sii wado oo meesha uu taliya Ufuro noogu dhiibay aan ka sii socono annaga oo kaashanayna xooggiina iyo aqoontiina saraakiishan la hadlaya xooggiina iyo aqoontiina iyo waayo aragnimadiina saddexdaas annagoo kaashanayna waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan sii socono oo aan soo noqonin koow taliyaha daaya wuxuu yiri hal idin helo anigu ciidankii hore ka bacdi ciidanka lama arkin laakiin ciidanka hore wuu taagnaan jiraba haddaan ciidanka xiisana seexdaan rabaa sababtoo taliya banaan ka soo toosay ma baan lahaan jirinba dhawaan ay ahayd markii wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilkii looga qaaday taliyihii hore ee ciidanka badda Soomaaliya Maadey Ufurow iyadoo sidoo kalena la magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka badda Soomaaliya gaashaanle Colujoog oo hadda xilkaasi si rasmi ah ula wareegay. Maxamed Xasan Qays, Tusma TV, Muqdisho.